waxa la sheegaa hadda dhulka galmudug loo bixiyo amba si aan loo bixiyo hadii la ku asluubta agteeda ya ha dhulkaas yaa la dejiyay yaasa go'aan ka lahaa siyaasiyiin iska fogfogayayso waa arkay laakiin dukumentiyada kulli waa yaalan arkiifiya dawladda hoosena waa yaalan soo markaysid hadii la ku dadka qaarna waa heestaanba soo markay aan ku doorkii aan ku sheegaba dhulkaas waxa soo sataa xilligii maamulkii iga horeeyay maxamuud axmed nuur tarsan safiirka Soomaaliya hadda ninka Kenya u fadhiya Soomaaliya ya maamulkii iga horeeyay xilligiisa waatii dad qaybtan hadda daray boortiga laga dhisay ee boorka agtiisa idoo leeyahay security issue oo airportka ah dad deganay si ashwaay ku deganay in laga dudunshay soo markaysid dadkaas marka laga dudumay waa cawdeen waxay raadaan aniga dahantiya nagala dudumay soo markaysid waxaan rabnaa dawladda dejin inay noo sameeyso ayaan rabnaa guddiga qabsadeen madaxdii ay la kulmeen dabadeed madaxweynaha jamhuuriyadda guddiga u saaray madaxweyne xasan sheekh maxamuud guddigaas waxa gudoomiyay kay cabdikariim xuseen guuleed saaxiibkay ya waxa xubin ka ahay tarsan guddigaas waxay soo jeediyeen dhowr qodob meesha waxa ku qoro warqadana way taalaa ay saxiixeen dhowr qodob ay soo jeediyeen kow waxay soo jeediyeen dadka meeshan laga dudumiyay in dib u dejin loo sameeyo dawladda dhul siiso labo waxay soo jeediyeen dadka waxay isku jiraan dad cuushash iyo yaani cariishman iyo laga dudushay dad sare guriga filooyin laga dudumiyay dadka filooyinka laga dudumiyana in dib u dejinta loogu daro wax cul celin tacwiid magdhow ahaan konton kun ee dawladda dhex ay siiso lacag magdhow ah soo markiisid qofkiiba dadka guriyaha waaweyn okay waxay guriba tala ku soo bixiyeen dhulka la dejinayna inuu noqdo dhulka wasaaradda ee bir mataqaana gaadiidka ilaahdo hadii ilaahay ku ruuyahay oo ku yaale asluubta ku dhaganahay waa dhulka hadda galmudug loo bixiyay in la siiyo saddexdaas guddigaas oo madaxweynaha jamhuuriyadda saaray oo cabdikariim xuseen guuleed gudoomiye ahay tarsan member ka ahay xildhibaan ay ku jireen ayaa go'aanka soo gaaro soo saxiixawoon yaala maxay gaareen dadka dib u dejin loo sameeyo labo in meesha galmudug la dejiyo saddex dadka guriyaha waaweyn laga duminaa culcelin in lacag la siiyo dawladda dhaxana ay siiso aniga markaas kadib la ii magacaabay ya go'aanka markay u gudbinayaan madaxweynaha jamhuuriyadda way iga horeeyay tarsana ku saxiixanaan guri ha hadii waa beenta cid tiraad warqad way taalaa hadii loo baadana midiya waa la soo bandhigi karaa laakiin aniga marba mas'uul aan ahay meeshay taal arkiifiye laga doonto aan ku dhameey marka maxaa dhacay marka madaxweyne markay u gudbiyeen okay u dhahay man aaminsan shaqo qaldan inay tahay maxaa dhacay marka adaga kiis kale bacdama gal waxaan waqti aan helna moogta okay maxaa dhacay markaan aniga markii la magacaaba 13 February xilligii fulintii aan ku soo aaday marka xilligii fulintii aan ku soo aaday dhulka marka dawladda iska leh dawladana dad muwaadiniin Soomaaliyeed oo meel for security reason looga barakiciyay qabtay inay dejiso maxaan sameeynaa markaan processkii aan marinay processkii marka maxaa bacdama dad guud oo yahay ka horta waa inay wasaaradda la weydiiyo bal inay u baahanta waa weydiinay wasaaradda gaadiidka waan weydiinay wasaaraddu waxay cadeysay inay baahi u qabin dhowrkan 20 sano inay ku shaqaysanin anteenooyina ka taagnaa jiray maanta anteenooyinka xilliga meeshaas ka taagnayna qalab yar oo elboorka yaalo ayaa kaaga filan waxay dhahan wax aan u baahna malahan qoraal dokumenti ay soo qoreen wasaaradda in dhulkaas ay ka maarantay madaxweynihii jamhuuriyadda aan u birig ma taqaana asna soo qoray noolo oosta ah in dhulkaas dadkaas la dejiyo in dawladda ay ka maarantay koow isla markaana dadka la dejiyo anigoo maayarkii ahna sabar loogaan siiyo dadkii sababkiis waxa lagu soo diray dad yar oo xil aqoon laga bixiyay taana maayarka caasimada aan ahay dhulkan muxuu ahaa sagada 900 boos amal u ahay waa hal goof dhulka dhan lagu sheegay sababkiis 900 goof markaan dadkii markii guddiga soo saarteen ayaga gacantoor ku soo qortay guddiga waxaan ku sheegay hal haduu ka been noqdo mas'uuliyadna qaadanay dadka meesha laga barakay ayaga soo qortay say u soo qorteena loo siiyay dad kale yaani xir aqoon laga barakay 8 qoys amal ahna dhul baa laga siiyay dad ayaga laftirkooda si sharci darro ah meesha hore ugu deganaay idoo dawladda leedahay iska qabsadana day ayagana birig ma taqaanaa waxba la yiri way joogaane ya ayagana yaanan la wada dayicin xal soo markaysid daacnaas la soo ayna waxba la siiyay sidaas oo go'aankii guddiga u taagay soo markaysid yaani sidaas ay ku dhamaatay marka aniga maxaan ka ahay maayarka warqadda baxshay marka fulin bay ahayd taas intaas ma kaaga dhameey u kaad marka aan mid kale aan kugu daro markaan aad xiriir qaasim ka gudubto sarta hormood ka gudubto dhulku ku dhagana dad badan waxay leeyihiin dhulkaas Mugabe bixid Allah magacay muslim dhulkaas aniga ma bixin dhulkaas iyadana maamulkiiga horeeyay ayaa dunshay
weli بالمناسبة ما دوان شيء صاحبك يترسن أسوء إذا عندك كده دول كبابر ما ألا بحي أسجى بحش أسجانا دون شيء أسجانا بحش هذا يبين نقطة ورقدي وكسه هي وكبحش ما يشيء تعالى إذا دول كاسمحوا هاي مركز دول كاسو حال رب ولد أودال اللي هجرة دول كدول دم جوده ما هين تطلع منتم دول أبصيبة أو بولد أود اللي هذا أو جرو حسين كل ما أفرح لون حريص مدحوني ورسول مدحوني كوعين ورسول ماليه هريريه سكوا جذا منو هاي شو مركز أنا دول كلهم ما يسقي يعني وقلدن قضالة أنا شو بكم اللي ما نبعين شو مركز عدة بحسين مسؤولية دري إذا لو يدينا يا ودي أنا ما بهم بقى وبصير كان مركز كو هريريه السناي جرو حسين كل ما أفرح بولد أود اللي هجرة ضد لحظة ما يقويش عمل أي حلقة من دولة محمد سابر دجناجرة أو بس يبقوا دجناجرة حوجات ضدهم مركز حلقة بربر كعيان عشوائي هان كل صوب بيرية يرى شوفك يدن كان أياجرة مركز اللي بربرنا يا مركز غير تان دراي بورتك اللي قدسه يا أيا إلهي كوريا مامل كيو بربرية تاسنا كد من مامل كترسن السجيا وحوج عن صلوا ورقته كسحة أنا غلط قلي أو دول أبصيبة أو دم جود هينين أو بربرية وحنا جو أمية دب هلا وعبر ضد كي